بسم الله الرحمن الرحيم والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقعيهيga waa محمد حوري إبراهيم قدوميها Somali Community oo Coast Region. waxaa maanta inta kula kulannay Cabdisamed Shariif Naasir oo ah MP-ga magaalada Mombasa iyo Senate Mohamed Faki oo Senate-ka Mombasa. waxaa aad dawladda ugu mahad celinaynaa dadka soo noqdeen oo inta macnaha meel ay ka soo noqdeen ilaahay baa og ninkii qabtayna ilaahay baa og marka ma naqaana anaga waa dawladda ma dhihi karno mana dhihi karna macnaha wicid ay tahay ma sheegi karno allahu yaclam marka laakiin dawladda markii maalin dhawtaan anaga kulmaynay waa kulunay dawladdana waa cabaadkeena dawladda baa maqashay maantana dadkii waa la soo dayay intaasan dawladda insha Allah mahad u celinaynaa فلله الحمد لله ما هذا ذا إسكاله وحندنا إسكاله دولتنا أن عندنا لنا هاي وأرنت نوعا أي نقول إن شاء الله دتك سمينا دتك قادنا يا إن شاء الله هنقل راديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحالي إلى زي خليف جل محمد مومباسا بسكيسي هاي مركا وعنا هي أودي أو بزنس مانه وحن إلهي كحمد لله إن أرتو ولكن إن ندب وحنناي فإلهي سبحانه وتعالى سوء روريي annaga 12 habeen hurdadeena waxay ahayd qalow iyo jiif la'aan laakiin xalay markay ahayd 3 saac oo habeenimo ayaa telefoon la ii soo diray oo leeyahay odayga waa soo galay waa imaaday runtii markaan ku sheegay ninkaas waa nin wanaagsan inaysan ka warqabo ama aan ogaay meel aan isku soo koronay isku eejina waan nahay adeerkayna waa dhalay marka ninkaas ani xumaan kuma aanan ogeyn laakiin masiiba iska imaaday marka wixii imaaday qadarka ilaahay waa lagu samraa waa ku sameersanahay qof aan u haysanana male hadii hadda aan helnay asagii oo ilaahay nabad keenay marka intii u qaylisay iyo intii nagu kaalmaysay ma hadan u celinaynaa asagana anaga hadda aan lama hadlin asaga telefoonka la soo diray waa imaaday alxamdulillah waa seexday marka saakina kulli dhakhtar iyo waxa soo aadaya aan wali asaga lama hadlin laakiin hadii uu soo adu yimaaday hadda adduunyada waxa qofkii nool ama geeri hadaad hesho oo qofkii meedkiisa aad hesho ama nolol ku hesho alxamdulillah waa qadar laga gudbi kara marka intaas aan anaga leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed sanwa cali waxaan ka mid ahay dadka reer Mombasa ama xeebta khusuusan Somali community members duqeyda waxa weeye waxaan salaamayaa dadka na dhageysanaya iyo dadka Soomaalida meel ay joogaan islaamka oo dhan baan salaamayna salaan kadib ilaahay baan shukri u celinaynaa halka maanta iskugu imaanay maaragtay macnaha waxa weeyaan mukutaanaha maanta halkan iskugu imaanay ama shirka oo ku saabsanay maaragtay dadkii ma garanaysaa lala'ay macnaha waxa weeyaan on anaga u qeylinaynin inuu ilaahay noo soo celiyay awal horta taad shukri baan macnaha waxa weeya ilaahay baan ku shukrinaynaa thumma marka kadib waxaan ku shukrinaynaa dadkii ka qayb qaateen ee doonistoodii iyo wada hadalkii meel kastaba macnaha gacneeyeen ama xafiis security haday tahay iyo haday tahay macnaha qeyle ama dad macnaha waxa weeya dad siyaasadda daayihiin ama dad ma garanaysaa kale oo dawladda ka tirsan daayihiin alxamdulillah rabbil caalamiin hadda ilaahay waana soo ajiibay ilaahay baan ku shukrinaynaa dadkii naga maqnaay oo khusuusan uu ka mid yahay sheekh cabdi wahaab sheekh cabdi samad waxa weeyaan in la helay baan noola sheegay sidii noola cadeeyay asagoo nabad qaba in la helay marka ilaahay baan ku shukrinaynaa waxaan asagaan u mahadnaqaynaa waxaa kaloon ilaahay ka baryaynaa cidda kale oo muslim oo dhib qabto in ilaahay ka saara annagana in ilaahay nagu soo celinin waxaa kaloo shukri kale u celinaynaa ugu dambeys aan shukri u celinaynaa wadajir oo ama u celinay annaga iyo dadka maanta shirkaas iskugu yimid oo ka mid yahay nin Shariif Cabdisamad Shariif Cabdi Naasir oo macnaha waxa weeye dadka laga soo doortay Mombasa mid ka mid ah iyo sanadka iyo halka maanta isku imaanay annagoo dhanba ilaahay baan shukri u celinay inta kadib madaxdana shukri waan u celinay waxaan ilaahay u baranay
wax alla wixii kale oo dhib qaba in ilaahay maaragtay dhibka ka saara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la yidhahdaa Xuseen Iimaan, muwaakilish waa wadiya Bondeni Tononoka. waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay, waxaan kaleeto oo aan ku faraxsanahay maanta oo iskugu nimid meeshaan. walaalkan Cabdiwahaab waa la helay xalayto, reerkiisa u soo hoyday, ilaahay mahadiis. wiigii horetaan press conference halkan ku qabanay oo aan ka codsanayna dawladda in ninkaas la soo daayo. marka waad ku faraxsanahay, waana ku mahadinaynaa haddaan nahay dadka ku dhaqan magaalada Mombasa oo Soomaalida ah ama siyaasiyiinta iskugu jira intaba. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. marka maanta waa tuna sharakeeya. bismillaah, alxamdulillaah, uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah, amaa bacd. waxaan u malaynayaa fadhigan magacayga horta waxaa la yidhaahdaa Mahad Maxamed Nuur, magac dheer Mahad Walaalow. waxaan ka mid ahay dadka communitiga Soomaaliyeed ee degan magaalada Mombasa. waxaan haddana ka sii mid ahay active member communitiga oo ka kooban yahay Somali community. waxaan ahay afhayeenkooda. intaas markaan halkaa uga gudbo, waxaan halkan meetingkayaga galabta halkaan isugu nimid duhurkan uu daaranaa runtii mahadcelin aan ilaahay u mahadcelinayno inaan dib u helnay oo noola soo midoobay walaalkeen Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. la midowgaas uu nala soo midoobay baan ilaahay uga mahadcelinaynaa. waxaan kaloon rabnay inaan mahad u celinno cid kasta oo gacan ka geysatay inuu ninkaas walaalkeena dib noogu soo laabto. cid walba oo ka gacan geysatay baan ilaahay ayaan mahad u celinaynaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaah maxbada weydiisanaynaa dhibaatadii maaragtay intaa leeg ma aanan la kulmin walaalkeen, weli ma aanan arkin, ma aanan ogaanin jihada maaragtay kolley xaalkiisa uu ka yimid, dhibkiisa waxa uu qabo oo nabara iyo caawa hadda weli ma aanan ogaanin iyo hadduu fayoow yahay. laakiin inuu bal horta isagii oo socday yimid oo aanan weli iswaraysan baan taasaan ilaahay uga mahad celinaynaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hadduu dhib qabana ka baxsho kale aanan ogeyn, dhib dambana inuusan ilaahay ku soo celin baan ilaahay ka baryaynaa annaga iyo intii kale oo islaamaba iyo ummadda oo dhan dhammaanteed. waxaan maaragtay aan runtii aad ugu mahad celinaynaa dadkii nala guntaday oo arrintan runtii nagala qayb qaatay, oo ugu horeeyo embiga Mafita ninka la yidhaahdo Cabdisamed Shariif Cabdinaasir iyo ninka la yidhaahdo Maxamed Baki oo ah sanadka laga soo doorto Mombasa County. labadaas nin oo runtii nagala qayb qaatay ninka baadigoobkiisiina aad baan mahad ugu celinaynaa. waxaan u mahad celinaynaa in kasta oo muslim ahayd oo walaal ahayd oo soo ducaynaysay oo ninkaasi maaragtay arrintiisa runtii ay dhibaato ku haysay. maaragtay baan u ducaynaynaa, yaan u mahad celinaynaa. ducadiina waa la aqbalay baan leenahay. ilaahayna maaragtay dhib intaa maaragtay ka badan nama yeelo. kii horena ilaahay ha nooga boogadhayo. halkaasaan kusoo gabagabaynaya aniga hadalkayga. waxaan ku celinayaa Chairmanka oo Somali community Maxamed Xuuri. waxaan kaloo u mahad celinaynaa runtii oo aad ugu mahad celinaynaa Chairmankeena sharafta leh oo runtii aad iyo aad maaragtay arrintan isugu howlay. arrimahan inay dhacaan oo dadkan iyo haddii la isu yimaadaan qayb weyn ka lahaa. waxaan leenahay ilaahay cimrigiisa ha raajiyo, madaxiisana ilaahay kor ha ka dhigo. waxaana leenahay shaqadaada waa wanaagsan tahay, meesha ka sii wad. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Kwamba haya yaliyofanyika yamekuwa wazi kabisa. We have CCTV footage, tuko na footage ambazo zimeshikwa na simu. Kitendo cha disappearance is an outright violation of the Constitution. It is a violation of the laws of the land, the Anti-Torture Act, the Penal Code. Hizo zote sheria zimevunjwa wazi kabisa. And we are confident that all the evidence is available, na ikiwa serikali wanataka ushahidi wa kutosha upo ambao unaweza kupelekea waliohusika wachukuliwe hatua za kisheria. And this is our message. We are watching very keenly what the government and in particular the DCI will do moving forward. Every evidence is available. So those responsible must be brought to book. Those responsible lazima wachukuliwe hatua za kisheria. Kenya is not a jungle country. We have laws.
You break the law, you must face the law. We are sure that evidence is there. So we are waiting to see if the government is truly serious, if the government truly wants to ensure citizens are safe, if the government wants to let citizens know that they do not condone these kinds of incidences, then we want to see arrests, we want to see those involved being charged in court, and we want to see those matters proceeding as directed by law. This is not a favor. This is the law of the land. Waliohusika na haya matendo, if truly we want to bring this to an end, they must face the law. So we are all waiting, particularly for the Directorate of Criminal Investigations. They have the evidence, and we are waiting to see if they will take action and bring those responsible. Sagara aliweza kuingia Mombasa, na kuingia kwake aliweza usiku wa manane, aliweza kuachwa pahali katikati ya msitu eneo la Voi, na alijua yuko Voi baada ya kuweza kuuliza hapa ni wapi, na akaweza kukabidhiwa 2,000. Akachukua bodaboda, baada bodaboda akaweza kupanda basi, na simu zake zilikuwa hazifanyi kazi. Akaweza mpaka alipofika nyumbani ndo akaweza kuwasiliana na ndugu zake ya kuwa ameweza kufika na yuko salama. Jana nimeenda mwenyewe kuweza kumuona, na ningeomba vyombo vya habari viweze kuheshimu matakwa yake na matakwa ya familia yake, ya kuwa it has been a very trying moment, very emotional moment. Mpeni nafasi aweze recuperate from the emotional and the physical harm on him. Ni lazima binadamu aweze wakati huo akae na familia yake, na kama walivyoambiwa ya kwa sahihi anafanyiwa medical check-up ili ya kwa awe yuko sawa, but in ukimwona unamwona ya kwa yuko sawa, except that he has lost a bit of weight. At the same time, Professor Abdulswamad jana usiku saa 3 ameweza pia kupatikana out of nowhere. Now, hakuna yote kiongozi wala ambaye kwamba ni Muislamu yote ambaye kwamba anakubali uhalifu. As a matter of fact, our religion speaks of nothing but peace. Our religion actually talks about tolerance and coexistence. Mhalifu ni mhalifu, but at the same time, not only the religion of Islam but dini yoyote inazungumzia ya kwa ukiliona jambo lolote ambalo kwamba limefanyika kwa mwenzako likataze. Ukishindwa kulikataza kwa kuweza kutumia nguvu yote, likataze angalau kwa ulimi wako. Ikiwa ulimi ambao kwamba pia umeweza kunini, unaweza kulikemea kwa njia yoyote nyingine. So nataka kuchukua fursa kwanza kutoa shukrani kwa ndugu zetu wote, the public in general, ambao kwamba waliweza kuhakikisha ya kwa this message does not die with just political leadership, na kila mmoja akaweza kulizungumza. Crime cannot be correlated to a tribe or a religion. Harshness and badness cannot be correlated to just a certain institute. It is for this reason tunasema ya kwa haiwezekani ya kwa tuko na katiba na tuko na sheria na watu tu wanachukuliwa kiholela holela. Mtu anabebwa, baada ya kuweza kubebwa hakuna no communication between you and your family or anything else. Mtu hajui chochote kinachoendelea. And I will respect the wishes. Manake wameomba ya kwa because I know the media watajaribu sana to speculate or to start saying things.
I'll respect the wishes of the victims themselves and their families. Kwa tuweze kuwapatia the privacy that they need right now to recuperate. But at the same time, government needs to respect not our wishes by choice, but by our wishes by design, because we are all governed by the constitution of this country, ambayo inampatia kila mmoja haki